saddex beri oo uu garowe joogay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud socdaal qaatay muddo ka badan intii la filayay ayuu ku tagay Garowe iyo Puntland. Madaxweynaha ayaa Puntland madaxdeeda kala hadlayay sidii xiriirka labada dhinac u noqon lahaa mid ugu yaraan ka maran xanaf haddii aan la helayn wada shaqayn fikta sare gaarta. wada hadalka ugu badan waxa uu Xasan la qaatay madaxweynaha Puntland musharaxu kula tartamay doorashadii dhaweyd dhinaca kalena loo arkayay in codadkiisii wareegii ugu dambeeyay ay ku biireen sanduuqa doorasho ee guusha u horseeday Xasan Sheekh Maxamuud. wadaxaajoodyada oo inta badan ku qotomay iska dhayista dildilaaci doorashada ballanka baxyadii dhinacyadu tirsanayeen wax wada qaybsiga dheefta lagu helo magaca dawladnimo mashaariicda caalamka iyo awoodaha dawladnimo ee aan shacsanayn ayay doodaha labada dhinac ku dulfurmeen bilowgiiba. inta badan adeegyada dawladdu bixiso ama ku hesho kaalmo dibadeed dood badan lagama gelin waxaana sidooda la iskula qaatay qodobo heshiis hore u qornaa marar badanna madax kala duwan ay saxiiday. faalanqaynta iyo faallada ugu badan waxaa laga yeeshay laba cutub waa kuwa waaweyn kuwaasoo kale ah wadaagga macaashka iyo hantida lagu hego magaca dawladnimo. Soomaaliya madaxda joogta waxa ay leedahay awood ay ku saxiixdo heshiisyo aan la marin baarlamaanka. heshiisyada labada dhinac ee isfahamku ay ka gaareen waxaa ka mid ah qaybsiga dulsaarka qaadka taasoo labada dhinac ku heshiiyeen in qaraabada dhow ee labada madaxweyne jaadka Kenya ee tagaya Puntland loo xiro $4 iyo bar halkii kan koonfurta ka ahaa kan tagaya gobolada waqooyi bari Puntland waxa uu noqonayaa $2 iyo bar oo ay qaadanayaan qaar ka mid ah dadka ugu dhow ee madaxweyne Dani. laba saxaaxa heshiisyo qandaraas oo kooxda Dani si gaar ah u soo gudbiyeen sida shirkad gaar ah oo macdanta ka baaraysa buuraha gobolada bari iyo Sanaag shatiyada maraakiibta jariifka iyo heshiisyo la xiriira kuwa laga leeyahay dalalka khaliijka waana hore u haysan saxiixa federaalka waxaana ugu weyn kan marsada boosaaso oo sida la aaminsan yahay lacag cusub ay ku bixin doonto shirkadda laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ee DP World. saddex awoodaha qarsoon ee xilalka federaalka ayaa labada dhinac ay ka wada hadleen. madaxweyne Dani waxa uu sheegay haddii Xasan uu ogolaado in xilalka aan ahayn awood qaybsiga 4.5 ee dhinaca Puntland ama saamiga guud ee beesha daarood uu isaga lagu maamuuso. xilalka aadka looga hadlay waxaa ka mid ah gudoomiyaha bangiga dhexe agaasimaha hay'adda socdaalka iyo taliyaasha ciidamada qaarkood iyo safiiro. dhammaan Dani ayaa ka aragti ka lahaa in loo dhiibo dad isaga siyaasad ahaan taabacsan. waxaa intuu kulanku u socday labada dhinac ay isla soo qaadeen in taliska ciidan ee Puntland ku matali doona federaalka aan laga dhigin shakhsi madaxweyne Xasan Sheekh xilkaasi u wato balse aad ugu dhow mucaaradka Dani. qodobkan wali waxaa ka taagan dood waxayna u badan tahay in mar kale laga sii wada hadlo ayay xaqiijinayaan ilo wareedyo muhiima. dhammaan qodobada ayaa ah kuwa ka baxsan intii laga filayay socdaalka taasoo ahayd in si furan adeeg bulsho looga wada hadlo balse taasi ma dhicin. waxaa lagu guul daraystay in la soo saaro warmurtiyeed sida ilaa iyo hadda muuqata. dhinaca kale qodob kale oo wali dhammaan dhinacyadu ay eegayaan waa arrinta ku saabsan shirka dowlad goboleedyada iyo federaalka kaasoo la xaqiijiyey in Garowe ay marti qaaday in lagu qabto halkeeda oo iyadu ay marti gelinayso laakiin sida ay dowlad goboleedyadu ku aqbalayaan ayaa iyana su'aal ay ka taagan tahay. madaxweyne Xasan haddii uu shirkan iclaamiyo Siciid Danina uu ku aqbalo oo soo dhaweeyo ama ugu yaraan uu ka dhex shaqeeyo sidii dowlad goboleedyada iyo Xasan ay isku fahmi lahaayeen kadib dhismihii xukuumaddiisa waxaa maanka lagu hayaa sida dhammaan dhinacyadu ay ku wada aqbali karaan dhawaaq ka yimaada fiila Soomaaliya oo ah Garowe la isugu tago.